12 tense ama 12 dhacdo ayaan daqiiqado kooban gudahooda ku fahmi doonaa. Tensiga sida caadiga 12 tense ayaa loo qaybiyaa. 12 tense waa 4 present, 4 past, 4 future, 4 taagan, 4 tagay, 4 soo socda laga wada Soomaali ahaan. 4 tagay mid walba wax loo isticmaalo, 4 taagan iyo 4 soo socotaba ayaan kala fahmi doonaa. Midda koowaad hadii aan ka bilowno ama midda koowaad oo ah taagan oo laga wada English ahaanteeda present. Present hadii simple lagu daro wuxuu noqonaa present simple ama simple present tense. Soomaali ahaanteeda waxa laga wada dhacdo si maalinlaha u dhacdo waa dhacdo maalin walba dhacayso waa salaadaan dugta camal waa. Okay, example hadii aan fiirno I do. Okay, present continuous tense hadii aan fiirno asna Soomaali ahaantiisa waxa laga wada dhacdo hadda gacanta lagu jiro oo sii socoto waa. Howl hadda gacanta kula jirtid oo sii socdo waa. Su'aalo waxa kamid ah I am doing. Tensiga saddexaad hadii aan fiirino present perfect tense waxa laga wada Soomaali ahaan dhacdo hadda faraha lagala baxay waa. Dhacdo hadda faraha lagala baxay waa oo present ah. Su'aalo waxa kamid ah I have done ayaad leedahay. Tensiga afraad laakiin ka aha tensi ahaan markii la fiiriyo tensigan sideed uu ka yahay, laakiin markaan shaxdan afarta present aan ku wadno kan afraad uu ka yahay waxa la present perfect continuous tense. waxa laga wada dhacdo waqti hor la soo bilaabo ilaa haddana socoto. Waqti hor la soo bilaabay ilaa haddana way socotaa. Tusaale waxa kamid ah I have been doing until 2 years. waa dhigi kartaa daarteed ilaa 2 sano waa wada hawshaas. Okay, qaybta labaad ayaan gali doonaa oo ah past oo Soomaaliyan laga wada tagay. Past simple hadii aan ka bilowno waxa la dhacdo la soo dhaafay oo dhamaatay waa. Dhacdo la soo dhaafay oo dhamaatay. Su'aalo waxa kamid ah I did. Kiyoor muxuu ah I do. Kan waxa leedahay I did. Okay, kan labaad hadii aan fiirno past continuous tense waxa laga wada dhacdo meel ay ku dhamaatay aan la ogeyn. Dhacdo socotay laakiin meel ay ku dhamaatay aan la ogeyn. meel ay ku dhamaatay lama ogo waa. Okay, waxa tusaale kamid ah I was doing. waxaan leedahay I was doing ayaad leedahay. Okay, kan saddexaad hadii aan fiirno qaybta pastiga waxa la past perfect continuous. Past perfect tense ayaa la. Past perfect tense waxa laga wadaa dhacdo hadda la soo dhaafay mid ka sii horeyso waa. Dhacdo hadda la soo dhaafay mid oo ka sii horeyso waa. Tusaale waxa kamid ah I had maxaa istay dhuumaysan oo hay maxay noqonay I had done ayaad leedahay. Okay, kan u dambeeyo waxa la macalin past perfect continuous tense ayaa la. Okay, waxa laga wada Soomaali ahaan dhacdo waqti la soo dhaafay bilaabatay, waqti la soo dhaafayna dhamaatay. Waqti la soo dhaafay bilaabatay, waqti la soo dhaafayna dhamaato waa. Waxa la gaaray mar hore ahaayeenba. Su'aalo waxa kamid ah I had been doing ayaad leedahay. qaybta dambaysa waxa la future ayaa lahaa. Simple future ayaan ka bilaabaynaa ama future mustaqbalka waaye ama soo socda. Future simple hadii aan ka bilowno future simple waxa laga wada dhacdo mustaqbalka dhici doonto waaye. Su'aalo waxa kamid ah I will do maxaa leedahay I will do ayaad leedahay. Okay, kan kale hadii aan fiirino waxa lahaa future continuous ayaa lahaa. Soomaali ahaanteeda waxa laga wadaa dhacdo mustaqbalka dhici doonto siina socon doonto waaye. Dhacdo mustaqbalka dhici doonto siina socon doonto. Su'aalo waxa kamid ah I will be doing. waxaa leedahay I will be doing. midkaan hadii aan fiirino oo ah kan 12aad future perfect tense Soomaali ahaan waxa laga wadaa dhacdo soo socoto oo dhamaatay waaye. Dhacdo soo socoto oo dhamaato. Su'aalo waxa kamid ah waxa laga wadaa dhacdo soo socoto oo dhamaatay. waxa laga wadaa tusaale ahaan guriga ugu balamisay guriga imaan rabaa waxa ku soo baxay cuntada diyaar mi ama quraacda diyaar mi markaas waxa dhacday inta imaanin marka imaado diyaar waa macna cuntada marka imaado diyaar waa. laakiin hadda lama bilaabin, laakiin marka aad imaado way diyaar waa. marka saas ayaa laga wadaa dhacdo soo socoto oo dhamaatay. inta marka imaadid waa dhamaanay macna. Okay, tusaale waxa kamid ah I will have done kan u dambeeyo waxa la future perfect tense future perfect continuous tense ayaa lahaa. tusaale waxa kamid ah I will have been doing kuwii hore camal la mid tahay. kuwii hore oo perfect continuous tense ay la mid tahay. soo faahfaahsan hadaa u baahan tahay lambarka warfalka saar nagala soo xiriir. Thank you very much.